والله دشا لكن قميسي يل مينو معناه waxay tahay gunnimo yaa la qoraa waa dhimanayna waa dhab qof noolaanaya ma jiro waxaad kala dooranaysaa marka waxaad doonaysaa inaad gobonnimo ku noolaato mise waxaad doonaysaa inaad gunnimo ku noolaato waxaan rabaa halkan inaan hal arrin ka xaqiijiyo Allah noo dhaliyay Soomaali Allah Islaan naga dhigay gunnimo yeeli mayno qabjabna yeeli mayno waxaan ka dhignaa sharaf haddii sharaftaasi nala gelayso geeri diyaar ayaan u nahay marna ma ogolaanayno marna ma yeelayno gunnimo inaan ku jirno maxaa yeelay ilaahay baa Soomaali naga dhigay si taas loo gaaro waa inaan adkeenno ciidanka qalabka sida waa astaanta qaranka taasi waa in ay nala weyn tahay qulubtana aan ku hayno astaan qaran weeye ciidankeena anigu aan taliyihii guud u ahay macnaheedu waxay tahay anshax wanaag akhlaaq wadaniyad soomaalinimo astaanta qaranka macnaheedu waxay tahay waa diidnay qabyaalad aragnay meesha ay Soomaaliya dhigtay maanta dadkeena dhibka iyo silaca ay ku jiraan inay ahayd wax qabyaalad ka bilowday astaan qaran iyo qabyaalad isma geli karaan mana ogolaanayno qabyaalad qabiil ilaahay baa noo dhaliyay qof walba aad u leeyahay awow u leeyahay markaan ka hadlayno qaran qabiil ma aha qaran waa wax ummadoo dhan ka wada dhexeeya ay ku midowday qabyaalad diidnay qofkii maanta qabyaalad ciil u qaba maanta qofkii qabyaalad ciil u qaba 30 sano oo burbura hadduusan arkin indhaha loo fiiqo waa nin indhala waa nin dhagala waxaa intaas dheer shisheeye kalkaal dad baa waxay moodeen haddii ay shisheeye isu dhiibaan dalkan inay badbaadinayaan war shisheeye iyo annagu waxaan leenahay dana isgeli kara laakiin uma noqon karno gun uma noqon karno taas ogaada waxaa naga dhexayn kara ixtiraam waxaa naga dhexayn kara sharaf waxaa naga dhexayn kara wada shaqayn laakiin nin ka sarreeya ma jiro cidna u hoos fariisan mayno ama uma daba fariisanayno shisheeye uma daba fariisanayno sidaan dalkan horumarkiisa uga shaqayn lahayn waa wax annaga lagu xiran waa wax Soomaali ay ka go'an tahay si kasta ha noqoto meel kasta hawsha ha naga gasho waxay ku dhamaanaysaa wax annagu aan leenahay oo aan ka xaajoonno oo dhexdeena aan ka dhamaysano marna isku dhiibi mayno shisheeye taas meel ku qora ma doonayno inaan ku noqono sidaan ahaan jirnay shacabka Soomaaliyeed waxay ay rabaan sharaf iyo rabaan waa dab waxay rabaan nolol waxay rabaan nabad laakiin xaqiiq waxa ah qofka Soomaaliga ah waxa weeye waxa koow ugu horreyn uu rabo sharaf iyo karaamo annagana ballan waxaan ugu ah inaan soo celino karaamadaas iyo sharaftaas inaan soo celino sharafkaas waxaa lagu soo celin karaa inaan dib u xoreyno dalkeena dib u xoreyno
dhinaca kale dawladda Soomaaliya way ka go'an tahay ilaalinta iyo dhowrista xornimada iyo midnimada dalka Soomaaliya arrimaha masiiriga ah ee ku aadan ilaalada midnimada iyo wadajirka qaranka ee ay hadda ka shaqeynayaan dawladda qaybaheeda kala duwan waa kuwa loo soo gudbin doono golayaasha baarlamaanka si ay uga qaataan tallaabada ku habboon iyagoo u eegaya dastuurka dalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay maalgashi Soomaaliya diyaar waxay u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto wadamada caalamka si kastaba ha ahaatee cid kasta oo doonaysa inay maalgashato Soomaaliya waa inay ogolaansho rasmi ah ay ka hesho hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka ah waxaan uga digayaa waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed waa dhab fariista waa dhab inaan xaalad adag ku jirno waa dhab inaan duruufo adag ku jirno waa dhab dhaqaalaheena inuu xun yahay uusan fiicnayn oo dhutiyo waa dhab in wasaaraddeena maaliyaddu ay ka daba socoto ka daba ordayso canshuur aruurintii waa dhab dad qaar ay inaysan fahamsanayn canshuurta macnaheeda canshuurta macnaheedu waxa weeye waa qofka dawlad raba canshuur waa inuu bixiyo canshuur la'aan macnaheedu waxa weeye waa dawlad la'aan haddaadan canshuur bixin macnaheedu dawlad fiican ma helaysid waa xaqiiq in hay'adaheena dawliga ah ay jilicsan yihiin oo tacbaan ay yihiin waa xaqiiq inaysan ammaano jirin oo dad naga mid ah ay musuqmaasuq ku kacaan waa xaqiiq weeye waa xaqiiq in aamin darro ayna hayso oo qolooyinka shabaabka ah naloo soo diray inay ummadda Soomaaliyeed ee lugaha qabtaan oo ay u diidaan ummadda Soomaaliyeed inay la xisaabtamaan caalamka waa xaqiiq weeye intaas iyadoo ayna haysato Soomaali waxa la rabaa qofkii aan fahamsanayn Soomaali waxay tahay inaan fahamsiiyo suga dadka Soomaaliyeed duruuf kasta ay ku jiraan dib walba ay ku jiraan waa dad أنا حتى وأقول كل ولا فرماجتي كل فرماجة يسمى أبي سنة كسي فرماجة يسمى أنا واقع ونكسر الصومالية يا أنا ونكسر أبي سلاحية دبوارتو سمادية حمانتي صومالية صومالي بالي أبي سلاحية دبقارو صريبها قاي بوارتو سمانتي دي حمانتي صومالية صومالي بالي
iyo dhibku waarto samaad iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale iyo dhibku waarto samaad iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale